beelaha ciise duulaan kuma soo qaadayaan Somaliland kamana soo horjeedaan midnimadeeda iyo jiritaankeeda. Waxa ay salugsan yihiin dowladda Somaliland oo dhinac u janjeedha iyo joojinta xeerkii ay ku soo bandhigi lahaayeen magaalada Saylac. Aragtidaasi waxa qaba Baashe Cali Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada beelaha ciise. Khadka telefoonka ayuu si toos ah ugu jiraa. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyay sababta ciisaha Djibouti iyo Ethiopia ay Somaliland ugu soo duulayaan. ciisihii Somaliland aanu qayb uga ahayn abaabulka colaadda laga hurinayo gobolada galbeedka Somaliland. horta ciisuhu amba Somaliland ha sii joogo ama Ethiopia ha joogo amba Djibouti ha jooge meel uu hadda ciise duulimaad uu ka soo qaadayo meel uu ku duulayo cid uu ku duulayo horta taasi ma jirto walaalnaan soo garanaba fiican waxa dadku ay garan laayeen oo ka khaldan waa xaflad dhaqan oo ciise inuu qabsado doonayay xafladda dhaqankaana waxa weeyeen sidaba ciisuhu meeshu doonay ha joogo xuska iyo maamuuska loo sameeyo xafladda xeer ciise uu doonay magaalada Saylac ee qadiimiga oo ku qabsado taasay hayd horta waxa hadal haynta badan dhareysay taas weeyaan markii ugu dambeyn dowladda Somaliland arrintaasi joojisay inuu ciise arrintaasi u arkay deegaankiisii iyo dhulkiisii in laga sheegtay taasi markaa waxay keentay ogaaska guud ee beesha ciise inuu baaq uu soo jeediyo oranaya ciiso dhulkaagii hadda waxa la rabaa inaad tagto taa oo macnaheedu loo fahmayo dadka qaarna ay ku macneynayaan inay dagaal tahay balse inaad tagto waxay ka dhigantay deegaankaasi cidi kaamale waa dhulkaagii kolka inaad tagto hawshii dhaqanka ee halkaasi aad ku qabsan lahayd maadaama arqalad ay ku timiday jiritaanka deegaankaasi waxa weeyeen mid laga leeyahay uu noqonayaa taasoo macnaheeduna ay tahay inay beeli dowladda Somaliland ay dhagahigi yeelato rabitaanadeedii iyo codsiyeedii oo dhan ay fuliso arrintaasi horta beesha ciise ay si uga gadooday aynan waxa weeyeen qaadan kari weyday iyadoo sidaas ay tahay beesha ciise waxa weeyeen haddana kama qabto Somaliland jiritaankeyga na qayb ka ahayd dadkii wax ka dhistay ahayd ilaa iminkana waxa weeyeen Somaliland duulaad kuma aha cid kalena duulaad kama aha dhulkeega bay u socotaa walaal Yuusufow haddaan su'aashaasi kooban ugu soo koobo waayahay deegaamada xadka oo kale ciidamo Ethiopia ka yimi ayaa ku sugan deegaamada ciidamadaasi ay ku sugan yihiin waxa kamid ah Habaas iyo sidoo kale Heemaal oo halkaasi ay ciidamada Somaliland ku kala dhex jiraan labada deegaan ciidamadaasi inay wadanka Ethiopia ka yimaadeen ayaa xoguhu ii sheegayaan maadaama oo aad sheegtay in aanay duulaan ahayn ciise maxay ahaayeen ciidamadaasi walaal Yuusufow ciisuhu waa dad xoolo dhaqata oo guurguura oo waxa weeyeen xuduudaha ayuu iskaga gudbaa marka baaqi ugaaska ciisuhu dareen waxa uu qaatay deegaankiisa inuu yimaado kolka dadka xoolo dhaqatada deegaanka ee guurayay xuduudaha waxa way ka gudbaan oo xilli abaareedka oo kale way ka gudbaan oo way isku tagaan waxaas mooyaane ciise abaabulan oo waxa weeyeen qaab maxaa ku yiraahdaa duulimaad oo jira oo xadka ka soo talaabay walaal Yuusufow ma jira marka laga reebo waxyaalaha warbaahintu ay aad u booborinayso jaamac marka aad ku soo dhawaato muhiimadda beesha ciise ma dagaal ayay ku jirtaa iyo duulaan ay ku qabsanayso magaalada Saylac mise arrintaasi waa laga been abuurayaa oo wax jiraba ma jirto beesha ciise Somaliland duulaan kuma cid kale duulaan kama aha waxay kaliya beesha ciise ay iyadoo tabashooyin badan Somaliland kolkii horeba ka sheeganaysay in maantana xafladeedii dhaqankii qabsan lahayd laga joojiyay arrintaas bay beesha ciise u aragtay inay waxa weeyeen dhulkeega ay timaado oo ay ka muuqato oo waxa weeyeen deganaashadeega iyo deegaankeyga ay xaqiijiso waayo dagaal waxa ku baaqayay ninka 3 bilood iyo 4 bilood ka hor beesha Gadabuursi ahayd dhiiga ciisaha xalaal ah ninkastoo dhiiga ciisaha ku maydhay waxa weeyeen waa ku janno tagaya horta durmaanka colaadda waxa sugaysay abaabulaya beesha Gadabuursi ahayd ciisu inta oo dhanba waxa weeyeen arrintaas oo ka aamusnaa wax dhibaato ah oo waxa weeyeen uu kaga falceliyay ma jirto
ilaa iminkana meel uu ciise ku soo duulay oo waxa weeye abagada bursiga hadlaya oo ku weeraray amba Somaliland oo ku weeraray lama hayo waxa weeye ciise Somaliland waxa weeye dadkii wax ka dhistay weeye wax dhibaato ah waxa weeye Somaliland oo ku hayana ma jirto mar laga reebay in jiritaanka deegaanadiisa iyo imaantikiisa oo xaqiijiyo walaal jaamacow labada deegaan ee walaalaha ahi waxay isku hayaan oo ku kala aragti duwan yihiin deganaanshaha iyo lahaanshaha degmada Seylac ee xarunta gobolka Selil haddii wax la isku qabtana waxa daruuriya sida dhaqanka Soomaaligu uu ogol yahay in laga garnaqsado oo miiska wada hadalka la fadhiisto oo qolo waliba cadeymaha u muujinaya ama u xaqiijinaya waxan inay leedahay ay miiska keento beelaha ciise ergo loo diray way ku gacan saydeen ayaa ilo xogogaali sheegayaan maxay ku diidan yihiin miiska wada hadalka inay yimaadaan waxa weeye horta ma jira meel uu ciise wada hadal ku diiday iyo meel wada hadal ku gacan sayday ergadaasi aad sheegtay waxaan maleynayaa ergadii garaad kulmiye aad ka wadaa sida aan u fahmay su'aashaada garaad kulmiye wuxuu ahaa ergo dowladdeegaanka ka socotay oo isxil saartay in dhex gasho markii ay kulamo la sameeyeen dhaqanka ciisana waxa loo sheegay in halkani wax culaadii iyo wax weeyin duulaanu ciise qaadaya ayna jirin balse ay loo baahan yahay hadii wada hadalka waxa weeyin in wada hadal la gala hadii loo baahan yahay in dawladda Soomaaliland iyo ciise wax ka tabanaya in lala hadlo ergadaasna waxa weeyin wada hadalkaas laga looga fadhiyay inay waxa weyn arintaasi ay ka gasho waxa ahayd in Soomaaliland iyo waxa weyn beesha ciise ay wada hadlaan oo tabashooyinka halkaaba jireen arintaasna waxa weeyin ergadii hawsha iyada kuma ay guuleysan ilaa iminkana waxa weeyin ilbaabka wada hadalka ee beesha ciise ee dhaqanku waa furan yahay cidba kama xidhno marka ay noqoto lahaashaha magaalada Seylacna waxa weeye walaal horta magaalo waa la wada dagaa oo magaalo waxa weeyin cid kaste ayay waxa weyn u furan tahay laakiin deegaanka gobolka Selil ee magaalada Seylac waxa weeye waa deegaan beesha ciise waxa weeye taariikh ugu sutan waa magaalo taariikh ugu sukan waa deegaan ay beesha ciise degto oo u gaara deegaana waxa lagu yeeshaa oo lagu xaqiijiyaa marka aad caanahana keento xaabadana aad keento xoolahana aad keento inta marka magaalada Seylac waxa weeye dhinac walba 100 kiiloomitir in ka badan aad daafto jakastood u baxday waa deegaan ciise geel ciise ciise xoolo ciise oo daaqaya u tagaysa kolka beesha walaalaheena gadabuusi waxa weeye arintaasi anu si ay uga muuqatay wax weeyeen waxay ahayd daandaansi iyo waxa weeyna colaad iyo waxa weyn inay markasto oo ay rabto inay iska horkeento dawladda Soomaaliland iyo beesha ciise arintaasna waxa weeyeen ciiso in badan buu arintaasi waxa weyn aad u dareensan yahay in waxa weeyeen Soomaaliland iyo ciise aan la iska horkeenin waayo jiritaanka Soomaaliland waxa uu ku dhisay yahay beesha ciise hadii ba la rabo in beesha ciise waxa weyn ay Soomaaliland khatar ku tahay waa hore khatartaasi soo bixi lahayd mar walba waxa weyn anagu meel aan ku qaadanay calan buluugana lama hayo meel aan gooni isku taaga Soomaaliland aan kaga madax banaan oo ku sheegayna lama hayo ilaa iminka anagu waxa weyn saami qaybsiga ku dulman ayaa haddana arintaasi iimaansanay jiritaanka iyo midnimada iyo nabadana aan ka raacnay iminka hadda la joogan waxa weyn magaalada Seylac waxa weyn walaalayaal iyo deegaanka guba waa deegaan beesha ciise ay leedahay waa deegaan maantana waxa weyn sida doonay baa qaaday xukuumadda Soomaaliland ay xoogaa gacbidixaysay inay waxa weyn beel kale rabitaanadii ay ku socodkiiso xafladii dhaqan kale ay joojiso barnaamijyo kale iyo hawlo kale beesha u soo jeedisay ay waxa weyn si toos iyo si dadban intaba ay u guliso intaasna waxa weyn xukuumadda Soomaaliland iyo beesha ciise way ka wada hadlaan ilbaabkaasna waa furan yahay walaalay ilbaabkaasi kulnaaba kuma xidhno jaamac dawladda Soomaaliland waxaad sheegtay in beelaha ciise ay taageersan yihiin oo aanay marnaba ka soo horjeedin nidaamka dawladnimada marka la eegayo systemka uu u shaqeeyana meesha uu ka arrimiyo ama se maamulo hadii uu amaamiir soo saaro in laga hor yimaada waxay ka dhigan tahay in dawladnimadii laga hor yimi arintaasi kuma muuqato adiga miyaa
waxa weeye walaal markaste beesha ciise xafladda waxay ku sareynaysaa rabitaanka jamhuuriyadda Soomaaliland codsiyo u qoratay kulamay la qaadatay wasaaradaha ilaa heer madaxweyne la kulantay ballamayna dawladdu u qaaday wixii oo dhan haddana waxay ku soo idlaadeen in waxaasi marna la ogolaado marna la diido iyadoo ugu dambeyn go'aankii madaxweynuhu uu ku shaaciyay in xafladdaasi lagu joojiyo markaasi waxa weeye ilaa iminkana iyadoo sidaasi ay tahay Somaliland ciisuhu lidi kuma aha arrin kasta oo gaadhina wada hadal iyo waxa weyn xal in laga gaaro beesha ciise ilbaabkaasi waa u furaya markay noqoto inay wada hadlaan dawladda Somaliland oo wixii ay kala tabanayaan miiska wada hadalka lagu dhameeyo waayahay buugga xeer ciise xogaha qaarkood ayaa sheegaya in Somaliland badafirsan yahay oo deegaamadan u aaminsan yahay inay yihiin waqooyi galbeed Soomaaliya arrintaasi wax jira maaha miyaad leedahay waxyaalaha buugga horta xaflad weeyaan buuggu waxa weeyin waa xeer dhaqameed muddo 500 sano ka hor la dejiyay 500 sano ka horna waxa suuraysan kartaa qariidadan juqraafiga ee nidaamka dawlad casriyeed inuu dunidaba ka jirin kolka waxa weeyin dhagalay wax la yiraahdaa ku xusan xeer ciise oo dhagaleydaasi hadii qofku lugta jabta maxaa laga yeeli hadii la rida maxaa laga yeeli hadii gacan la gooyo maxaa laga yeeli meel laba wax qariidada iyo waxa weeyin magaco ku xusani ma jirto walaal oo waxa weeyin xeer ciise oo qeexayo leeyahay dul heblaayo oo wadan heblaayo ka tirsan waa dhul waxa weeyin oo nidaam caynka ah u qoran yahay buugu ma ahayn waxa weeyin waa nidaamka been abuurka inta badan iyo dacaayadaha la faafiyay aan u baahanahay in waxa weeyin xilligeega iyo waqtigeega qof kastaana uu dalacan karo si cadna arrintaasi aan tagno weyn walba jirta arrintaas ugu dambeyntii jaamac inaga oo ku siqayna gabagabada wareysigeena xogaha qaarkood ayaa sheegaya in beelaha ciise ay dabada ka soo riixayaan wadamada Djibouti iyo Ethiopia oo doonaya inay deegaankan khayraadkiisu uu dihin yahay sidoo kalena marsada asaasiga ah ee biyaha badda cas si kulaalaysa ay gacanta ku dhigaan arrintaasi maxaad kala socotaa adigu waxaan ku walaalihiisu horta beesha ciise cid dabada ka soo riixaysa iyo dawladdu waxa weeyin ku daba jiray mid daba jiro beesha ciise waa beesha Soomaalida kaliya ee dhaqanka ku adag ciisuhu arrinta dhaqankii lagu horjoogsaday iyo ugaaska baaqa u jeediyay marka laga reebo ma jiro cid kale oo dabada kaga jirta iyo wax kale oo ku soo dhex dhuumanaya arrintaasi waxaan ku leeyahay waxba kama jiraan